السلام عليكم مركز سوري وهذا أصحاب تقييمها بدن كحيرا channel كينا قلة تيوب برشة علومتا كمبيوتر كتكنولوجيا ده waxaynu halkan ku duubanaa casharkii sagaalaad ee barnaamijkeeni quickbook ama barnaamij xisaabeedkeeni inoo socday waxaynu ku eegi doonaa casharka sagaalaad diiwaangelinta hantiilayaasha ama qaabka loo diiwaangeliyo hantiilayaasha dabcan hantiiluhu waa cidda markaa iskale company-ga ama business-ka marka waxaynu ku eegi doonaa equity registration hadaba marka ugu horeysa waxaan eegi doonaa bal company-geena dhaqdhaqaaqiisa waxaan tagi doonaa report sidaan soo sheegnay balance sheet-ka waan ka soo hadalnay waxa uu yahay kadib waxaan tagi doonaa company and financial kadib waxaan eegi doonaa balance sheet standard halkan markaan eegno sida ay u jeedaan waxaa jira waxa loo yaqaan assets oo ah hantida meeshaas taala iyo nooca ay u taalo tusaale ahaan checking savings akoonada inoo save garaysan daabshiil account waxaa inoogu jira $1 marka akoonkan amal bank iyo daabshiil way soo yaalaan tusaale ahayd qaabka waxaan ku soo aragnay akoon loo hosgeeyo laakiin tusaale ahaan daabshiil waxay inoo taala lacag ah $1 wax inventory ma jiraan wax fixed asset ah ma jiraan marka total asset aan haysanaa maxay waa $1 wax deyn ah oo leenagu leeyahay ama liability oo leenagu leeyahayna ma jiraan equity hantiilayaashu waxay leeyihiin $1 marka ismaan guray oo tusaale ah oo hantiila ah wuxuu leeyahay $1,000 ee meesha yaala isaga ayaa iskale marka wanaagin yiri marka la isku daro liability-ga deyntii company-ga lagu lahaa business-ka iyo equity wada la mid noqdaan asset-ka meesha yaala marka imika wax deyna lagu male hantida meesha taalay waa $1 hantiilahaasna ayaa iskale waa $1 daba sidii loo diiwaangeliyaa hantiila cusub baan rabnaa inaan diiwaangelino qaab badan baa jirta oo loo diiwaangeliyo waxaan tagi doonaa waxa loo yaqaano company menu kadibna waxaan dalban doonaa make general journal entry oo aynu dabcan in badan isticmaali doono bal aan ku horeyno qaabkan halkan ayaan ku dhufan doonaa kadib waxay noo soo bixi doontaa daaqadan halkan waxaan ku qori doonaa akoonka akoonka waxa muhiim akoon kasta wuxuu leeyahay loo yaqaan debit and credit meel uu ka kordho iyo meel uu ka yaraado iminka horta waxaan samaysan doonaa halkan date ka dalban doontaa halkan waxaan ku dhufan doonaa waxaan samaysan doonaa akoon aan ku ridno tusaale waxa loo yaqaano lacagtan taabshiil waan dhigi karnaa meel kale waan dhigi karnaa laakiin khasnad ayaan dhigi doonaa tusaale ahaan marka iminka akoonka loo yaqaano khasnad ma yaqaano wuxuu ku leeyahay khasnad is not in the account list marka waan ka soo hadlay charge of accounts akoonada iyo qaabka loo abuuro casharada hore ayaa dib u laabanaysa waxaan leenahay set up kadib waxaan leenahay waa bank oo maxay noo qaban doontaa hore ayaan u soo sheegnay kadib waxaan leenahay continue inta markaan sameeyno khasnad sida caadiga ah daaqadan ayaa noo soo bixi doonta description-keeda iyo waxaan dhan waan ka soo hadalnay akoon kale dad hoos geynaysa waa sameyn kartaa waxaan dhan waan ka soo hadalnay inter opening balance waan sameyn karnaa laakiin save and close baan leenahay xaggan ayaan ka gelin doonaa inta markaan soo dhamaystirno waxaa muhiim ah khasnadu sida caadiga ah waa maxay waa asset waa meel aynu dhigan doono sida lacagaha cash-ka ah oo kale tusaale ahaan marka asset-ku siisa wuxuu ka kordhaa debit-ka marka waxaa jira akoon kasta waxaa jira meel uu ka weynaado iyo meel uu ka yaraado akoonka loo yaqaano khasnad waa asset-kuna wuxuu ka kordhaa waxa loo yaqaano debit marka isna wuxuu leeyahay $1 waxaan dhigi doonaa lacag ah $1,000 yaa iskale waxaan oran doonaa waxa iskale Maxamed Cabdi Faarax la iskale tusaale ahaan Maxamed Cabdi Faarax si eegsan waa hantiile marka imika markaan inaano tab Maxamed Cabdi Faarax ma garanayo waxaan leenahay set up kadibna Maxamed waa equity waa hantiile okay save continue waan leenahay save and close ayaan leenahay marka sida u jeedaan hantiiluhu wuxuu ka kordhaa akoonkiisa wuxuu ka kordhaa maxay credit-ka taa macnaheedu waxa weeye haddii imika qofka hantiilaha uu lacagta la baahayo oo uu sameeyo waxa loo yaqaan withdrawal dib baa ka arki doonaa waxaa loo gelin doonaa maxay xaggan marka khasnada lacag laga saarayana xaggan ayaa la gelin doonaa credit-ka ayaa la gelin doonaa laakiin marka lacag la dhigayo waxaa la gelin doonaa maxay waxa loo yaqaano debit-ka okay kadib waxaan leenahay save and new waan sameyn karnaa waxaan kaloo sameyn karnaa waxa loo yaqaano save and close marka aan kor u soo yar qaado si aad ila aragtaan ka xalana save and close waxaan eegi doonaa bal report-kani waxa iska bedelay waxaan tagi doonaa report company and financial balance sheet standard ayaan eegi doonaa bas sida eegdaan khasnada loo yaqaano akoonka loo yaqaano khasnad ama checking saving and lacagahan oo kaydsan khasnada waxa ku jira $1 daabshiilna waxa ku jira $1 total asset-ka aanu haysana waa maxay $2,000 wax deyn ah laynagu malaha maxay aad farax waa hantiil wuxuu leeyahay $1 ismaan gurina waa hantiil wuxuu leeyahay $1 labadooda marka la isku daro waa maxay waa $2,000 wax deyn ma jirto kadib automatically qaabkaas
ayaan abuurnay. waxaa jira qaab kale oo ka yara gedisan insha Allah oo nidaamyo kale loo isticmaalo. tusaale ahaan halkan waxaa noo yaala home page keena, waxaa noo yaala record a deposit. deposit means lacag dhigasho oo kale. tusaale ahaan halkan waxaa ka dooranaysaa lacagta meesha la dhigayo. tusaale ahaan khasnadaasaan u daysananaa. halkan waxaa ka dooranaysaa waxa loo yaqaano bishii waa deposit. halkan receive from yaa laga helay from account loo kala duwan. tusaale ahaan imika waxaan doonaa lacagta waxa laga helay hebel waxayna ahayd sales eBay, laakiin imika waxaan samayn doonaa halkan ba magac baan gelin doonaa. waxaan leenahay tusaale ahaan hantiilo cusub baan diiwaan gelinaa. tusaale ahaan ama equity cusub baan diiwaan gelin doonaa. waxaan leenahay Maxamed Cabdiqaadir baan leenahay. tusaale ahaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed. imika markaan ku dhufano ma yaqaano name not found magaca lameyn. kadib waxaan leenahay quick add iminka baro marka ma vendor ba ma customer ba ma employer ba mise wax kale. waxaan leenahay waa other oo wax kale. kadib waxaan leenahay from account. marka sida caadiga lacagta waxaan oran karaa waa sales baan oran karaa tusaale ahaan oo kale, laakiin imika halkan waxaan ku qori doonaa waxaan leenahay Maxamed Cabdiqaadir Maxamed. marka imika Maxamed Cabdiqaadir Maxamed kuma jiro akoonada oo akoon jira ma aha, laakiin waxaan leenahay waa hantiile. waxaan leenahay continue, waxaan save and close. kadib amount lacagta waan gelinaa. waxaan gelin doonaa $500 ayaynu u gelin doonaa. okay daaqadan aan soo yaro koobo. kadib waxaan leenahay save and close. imika maxaa dhacaya? waxaa soo kordhi doona lacagta khasnada inoo taallay $1,000 bay ahayd $1,500 ayay noqon doontaa. daabshiilna waxaa noo yaalay $1,000. total asset aan haysanaa wuxuu noqon doonaa $2,500. waxaa soo kordhi doonaa qof cusub oo hantiila ah oo loo yaqaano Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo leh hanti dhan $500. total hantiilayaashu waxay leeyihiin $2,500. report company financial balance sheet standard. marka sidaa eegtaan khasnada maxaa ugu jira $1,500. daabshiil maxaa noo yaala $1,000. total asset aan haysanaa $2,500. waxaa soo kordhay hantiile loo yaqaano Maxamed Cabdiqaadir Maxamed $500. maxaad farax wuxuu leeyahay 1,000. ismaan gurin wuxuu leeyahay 1,000. total liability plus equity waa maxay? waa $2,500. saas ay adjust noogu tahay ama waxa loo yaqaano transaction-kiina uu siman yahay ama dhaqaaqa company-geenu. tusaale ahaan khasnada laba jir riixid waxaad arkaysaa maxay qaabka waxaani ay u dhaceen iyo meelaha ay ka soo galeen. marka saa ujeedid kana maxay waa deposit waan soo dhignay. haddii aad rabtid in transaction-ki aad samaysay aad ka noqotid tusaale ahaan waxaad samayn kartaa record deposit baad tegi kartaa, kadibna previous baad oranaysaa, kadibna transaction-ki dhacay waa halkan kusoo dhigayaa. imika waxaan leenahay waxaan rabno ayaan ka bedeli karaa. tusaale ahaan oo kale haddii aad rabtid inaad bedeshid oo kale halkan ayaad ka bedelaysaa. casharkani waa cashar aada u kooban oo aynu ku baranay qaabka loo diiwaan geliyo hantiilayaasha. oo anigu engineer Ismaan Guraya intaan ku kulmi doono casharkaas xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.